بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad ayaan idin salaamayaa asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely Channel bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamayaa asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely meel kasta dunida daafeeda aad ka joogtaan waa mar kale iyo Lovely Channel iyo saad uga barateen alaab testi ah oo dhadhan ah cunto cusub oo aad u fudud waliba maasha Allah maanta Lovely Channel waxay idin haysaa alaabtaas soo farfariista yaa waa qadayro aad iyo aad u fudud cashana waad ka dhigan kartaa maasha Allah yaa halkaas waxa ka muuqda waad arkaysaan alaabtaas aad u jeedaan aan idinku soo dhaweeyay videoga la socda videoga bilow ee dhamaystir waxyaabahaas aan ka sameeyay alaabtaas dhadhanka ee quruxda badan leh yaa macal baastadeeda oo qaacaysa maasha Allah mooskeedii waxeedii alaabteedu waa qada dhammaystiran oo haddana fudud muhiimadda aan maanta waxaan ku leeyahay idin duubaya waxa weeyaan sida loo sameeyo steak aad u fudud steak baan idin la qaybsanayaa asxaabta qaaliga okay steak aad u fudud oo oven aad ku sameysanaynin oo aad waxaan ku leeyahay maqligaaga ku sameysanaysid la socdo videoga bilow dhamaystir halkaas waxaan ku soo shubtay waa filfil halkaasna waa basbaas guduud yaa wax yar oo basbaas guduud ah masha Allah la socdo maanta steak ayaan idin karinayaa maanta soo farfariisto oo aad u jilicsan halkaana waxaan ku shubtay qaado ah aan xoog u buuxin waxyaabaha aan ku shubay qaadooyinka xoog uma buuxaan waa basbaas guduud barbecue paprika waxaan ku shubay tuunta shiidan maraq digaag shiidan waxaan ku shubay filfil oo shiidan kadibna basbaas guduudka labaadna waa paprika ka saddexaad ee cadaanka ana waxa waaye tuun shiidan ka jaalo ana waxa waaye maraq digaag ama jumba iyo xawaash kaari soya sauce ayaan ku daray wax biyo ah kuma qasaya alaabtan waxaan ku qasayaa vinegarkaas ama khal qofba si u yaqaano intaasaan isku darayaa cusbo kuma daraya maxaa yeelay maraq digaaga asaga dhanaan ah oo qaybta cusbada galay alaabtan waxaan kula xitaa ma la dhigdhigayo waa hadda mari hadda dib okay khalka ayaan biyo kaga dhigayaa wax kale ma ku darayo intaasaan ku darayaa bes waad iska dhadhaminaysaa dhanaankiisa hadduu kugu yaryahayna waad ku kordhisanaysaa asxaabay hadda waa ii diyaar alaabtaydii waa taas dhanaankaygii hilibkii waa kaas muxuu ahaa steegii oo aan soo diyaarsaday waan marmarinayaa maasha Allah waad arkeen saas uu balbalaaran yahay saasaan u marmarinayaa waan dhex dhigayaa hilibka oo kaa hilibka steega waan soo diyaariyay waan soo tumay markii aan diyaarinayay ma idin tusin laakiin hilibka waan saafay kadibna baalka oo dubaha oo lagu tumo ayaan ku sameeyay isagoo diyaarina hilbayaasha Soomaalida yaa steegaas isagoo diyaarina way gadaan maasha Allah hadda saas uu diyaar ku yahay saasaan haddan dubayaa waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah oon rabaa dheecaanka iyo maaragtay xawaashada aan ku daray laftiya dhuuxa inay ka gasho saliid marka aad ku dartid markaad xawaashada waxaas aad wax marisid saliid haddaad ku dartid laftiya dhuuxa ayuu ka gelayaa xawaashadu kama bidbidayo ama kama duulduulaayo ama kama ba'aayo qofba suu yaqaano okay dabka waxaa loo baahan yahay inuu ahaado dab yar waayo waxaan rabaa marka hore hilibka inuu dheecaankiisa dhalo dheecaankaas ayaa hilibka bislaynaya kadibna dheecaanka uu isagaa liqaayo oo dhammaystirnay hadda saliidda ayaan ku shubay bas wax kale kuma shubin dabkayguna xoog ma dheera saliidaan rabaa xoogaa inay iisoo yaro kululaato
kuleyl zaaidna kama dhigay laakiin kuleyl waxaan rabaa marka aan hilibka ku rido jagax dhahaya. kaas saliidu xoog uma kulula laakiin waa diirimaad. saas ayaan ku daynayaa. dabkayguna waa dab iyo dhexdhexaad ah. waxaan rabaa in hore iga bislaado ma rabo uu qalalo ma rabo. waxaan rabaa biyo hilibka inuu dhalo. dhacaanka iyo biyaha uu dhalayo ayaa bislaynaya hilibka. waa kaas dhacaanka inuu soo bixinayo waad aragtaan. biyo ayuu dhalayaa. biyahaasna kadib isagaa gursanaya oo maliqaaya. marka hilibka dhacaankiisa dib ayuu ugu laaban doonaa. hadda biyahaasi alaabta kasoo dareerto waad aragtaan. mar dhowna waa arki doontaan sida biyihiisa u ceshto. waxaa lagaa rabaa in aad kolba dhinac u rogtid. kaas aniga maqli caada ayaan ku shiilayaa. maqliga loogu talagalay steega liibliibka la grillka loogu talagalay kaas ayaad ku samaysan kartaa. aniga laakiin maqlo caadiya kaas caadiya ayaan ku samaysanayaa. dheecaan badan ayuu sameeyey waad aragtaan. hadhowta dheecaankaas oo dhan wuu liqayaa wuu gursanayaa. markaas waxaan yara sugaynaa in uu xoogaa brown uu noqdo insha allah. la socda asxaabay videoga bilow dhamaystir insha allah. asxaabay waa inaad kolba yara rogtaan oo dhinac kale u rogtaan. waayo dhinac kaliya uu ka bislaanaya. haddii kale kolba dhinac waa inaad u gudgudisaan. qaybta markuu dheecaan keeno qaybta kale waa inuu dheecaankiisu isna keeno uu bislaadaa. marka waad arkaysaan kolba inuu rogaayo. kolba dhinac kale ayaad rogaysaa. tartiibtaas ayuu ku bislaanayaa insha allah. ovenkana waad gelin kartaan. marka aad xawaashada marisaan ayaad ovenka gashan kartaan. saasaad ku gelin kartaan. laakiin oven maanta anu ma ku sameynayo. waxaan ku sameynayaa waa ay ujeedaan maqligan. aad ayuu u fudud yahay. waa cunto yaroo aada u fudud yaa aad ayuu u fudud yahay. waana tasty macaan maasha allah. waad arkaysaan asxaabay. hadda saliidii waa soo hadhay. dheecaankii wuu noqonsaday. dheecaan buu markii hore soo saaray hilibka. markii dambena dheecaanka wuu laqsaday. hadda waxaan sugaynaa micnaha hilibku wuu soo bislaaday. waxaan sugaynaa inta uu xoogaa brown ii noqonayo. dabka ma kordhinayo. intaasuu ii ahaanayaa dabka yar ee meel dhexaadka ah. korka xoogaa brown ayuu kasoo noqday. waxaan rabaa hadda hilibka xoogaa inuu ii yara shaaxido uu golden brown ii noqdo. loonka dahabi inuu ii noqdo rabaa. hadda waa khalaas. dheecaankiisii wuu dhamaystay. waa saliidii markii hore aan ku shubay ayaa imika ii soo hadhay. ha ka warwarina hilibka ma qaato saliid badan. just marka aad ka bixisid qaleyl ayuu noqonayaa. hadda waa diyaar asxaabta qaaliga. waa ujeedaan diyaar weeyaan. brownkii aan rabay ayuu ii noqday. waxyar baan ka goynayaa. waa ila arki doontaan. midida ma rabo inay bahalka iga xago. aayar baan ku sameynayaa. waad aragtaan kiskaa yaraan ka gooyay siduu yahay. isaga dhan buskud ayuu noqday. aad ayuu u jilcay. aad ayuu u macaan yahay maasha allah. asxaabay tijaabiya. isagoo chicken waad samaysan kartaan. chickenkana waad ka dhigan kartaan. sidaas haddaan u sameeyey ayaad ka dhigan kartaan chickenkana. hadda saasuu diyaar ku yahay. xabadii kalaan saarayaa insha allah. saas ayaan ku wada bisleynayaa insha allah. dabkana meel dhexaadkan idiin sheegay ayuu ahaanayaa.
okay saas ayuu ku bislaanayaa asxaabta qaaliga maasha allah. hadda waa ii diyaar. baasta ayaan xoogaa dalacay. baastadan rabaa inaan saldaata ka dhigo yaa xoogaa baastada waan yaro huurinayaa. baastada xoogaa half cook iyadoo abaan ka qaaday ma jilicsana maxaa yeelay suugadaas oo dalac bilaashka markaan ku daro iyo xawaashkiisa iyo wixiisa wata iyo khudaartiisa asagaa huurinaya. maadaama aan sameynayo steak uguma talagelin maanta waxaan rabaa baasto bilaa hiliba inaan sameeyo oo laakiin suugada yaraan u sameeyey dalac bilaashkaan u sameeyey beanskii adduunkii wixiisii oo dhan ayuu wataa. confla waxaan ku daray galaydaas waxaan ku daray beanska greenka ah kabalbalaarka barbaroonigii wixii oo dhan saas ayuu waxaan kula iigu huurayaa. daboolkan saaranaya dabkana waan yaraysanaya waan ku yaraynayaa. maasha allah waxay noqon soo baxaysa baasta aad iyo aad macaan oo kaala arag oo saldaata ah. sidan waa sida ugu fudud ee saldaatada u suubisan kartid. la socda baastada waa inay half cook ahaato. hal mar ama laba jeer markay karto waa inaad biyaha ka miirtid haddii kale way kaa jilcaysaa. okay haddana waxaan sameynayaa mushroomka waan soo dhaqay. mushroomka diirkiisana waad ku karsan kartaa. haddii aan rabina sideeda oo kale diirka waa ka qaadi kartaa. diirka aad buu fududaya sida looga fiiqaayo. halkaa dhexdaa jaka siina diirka isagaba kuu soo baxaayo sida yaanyada loo diirka looga qaado camal waaye. dadka qaar way jecel yihiin yani wax dhibaato male haddii aad diirka aanad ka qaadin laftirkiisa. dadka mushroomka aadka u jecel dadka qaar baa jecel dadka qaarna ma jecla. marka mushroomku aad ayuu u fiican yahay. soomaali talo maxaa lagu dhahaa barkin libaax mu aha talo barkin libaax. okay kale wadankeena ma garanaya in wadankeena laga helo mushroomka. diirkan ka qaadayaa aniga waan soo dhaqay markii hore afkii horena waan kasoo gooyay. diirkana waa kaasaan uga qaaday. diirka waad aragtaan. haddii aanad rabina waad iska diirkaagaad ku samaysan kartaa. mushroomka maasha allah marka aad karsatid yaa kelida xoolahoo kale waaye dhadhankiisa xitaa keli baad moodaa yaa xoogna looma googooyo maxaa yeelay marka uu bislaado wuu yaraadaa. marka si gooska qaban karo waa inuu si xoogaa waaweyn u goysaa. maasha allah mushroomka wax kale kuma karinayo saliid bas ayaan ku yara shiilayaa. waxaan rabaa inuu ii bislaado waayo wixii kale khudradii kale waan samaystay. baradho iyo waxaan isku huursaday iyo carrot iyaguna ii diyaar ah. marka mushroomka isaga gooni baan u karinayaa. saliid yar ayaan ku darsanaya wax yar oo maraq digaaga ayaan ku darayaa. waxaan intaa yariistay maraq digaaga macnaha waxaan u rabo test baan rabaa inuu ii sameeyo iyo wax yar oo filfila. intaas bas ayaan ku darayaa si uu testi iyo dhanaan yar iigu yeesho. saas ayuu ku bislaanayaa maasha allah. biyo yar ayuu dhali doonaa. biyahaasaa mushroomka bislaynaya. hadda qadadaydii waa diyaar maasha allah. steegii baradhadii kaaradkii khudradii aan ovenka gashaday. mushroomkiina waa kan isna waan diyaarinayaa. salaatadiisii baastadii steegii maasha allah waa qadad tasti ah oo waxaan ku leeyahay kaala arag hal mar yaa saacad kuguma qaadanayso inta aad soo diraysid. waa kaa mushroomkii biyuhu dhalaya waad aragtaan. biyihiisaas ayaa bislaynaya insha allah. yaa alaabtan waa keliyaad moodaa keliyo. haddaad basal yar ku dartid aad jacjac kaga siisid keliyo waxba ma ogid. asxaabta waa taa baradhadii kaaradkii iyo alaabtii reedan ofanka isku gashtay. steegii saas ayuu kusoo baxay aad arkaysaan maasha allah tabaaraka allah. mushroomkii korka ayaan ka saaray. yaa asalaatadaada u suubiso juuskaaga samayso maasha allah tabaaraka allah. waa cunto dhammaystiran oo healthy ah oo kaale iska araga. yaa baastadiina waad aragtaan say kusoo baxday. mooskaaga dhinaca ka saaro. yaa qada special weeyaan oo aada fudud cashana waad ka dhigan kartaa.
adiga casuumad qoota qoota iga dheh yaa casuumo qoota qoota marmar waxaa nafta u baahan in wax yaro dhadhana oo tasti aad samaysatid maasha allah tabaaraka allah. mushroomkii waad aragtaan siduu kusoo baxay steegii wuu ka hooseeyaa waa kaa mushroomka saan idiin sheegay keliya moodaa kaliyo yaa maasha allah tabaaraka allah. asxaabta qaaliga baastadiina waa taa saldaatadii aan maasha allah soo sameeyey tijaabiya maasha allah tijaabiya ubadkiina reer faamiligiina asxaabtiina qof kastoo jeceshihiin yaa naftiina ku tijaabiya karsada yaa waad ka heli doontaan aniga shaqsi ahaan waan ka helay idinkana waad ka heli doontaan baastadii wataa saasay kusoo baxday baastadaasaan idiin sheegay hal mar ama 2 jeer markay faq tiraado ka shuba biyaha haddaad rabtaan saldaata inaad ka dhigtaan haddii kale baastiyo suugadaada caadiga ah soo dhiso waad fahanteen alaabtaana waa alaabtaas oo kaliya kugu filan inaad cuntid baasta iyo wax kale uma baahnid maasha allah. steegi wakaas maantaan idinku talagalay asxaabta qaaliga ee fududaa ee ofan la-aanta aan suubiyey maasha allah tabaaraka allah. usii sheergareeya qof kasta oo jeceshiin asxaabta qaaliga ha ka faa'iidaystaan uga faa'iideeya faamiligiina asxaabtiina cid kasta oo jeceshiin isku tijaabiya idinka laftirkiina wax kasta waa la tijaabiya wax kasta waa la isku dayaa qof kastaaba waxaan ku leeyahay muu ku dhalan qof kastaaba waxaan ku leeyahay isaga ayaa barta marka wax kasta waa la tijaabiya asxaabta qaaliga soo tijaabiya ila arka alaabtan tastiga ee dhadhanka ah ee macaanka ah maasha allah waad ka heli doontaan keligiis ayaad cuni kartaan asalaatadiisa iyo keliya baastada waad ka boodi kartaan bariis ayaad ku cuni kartaan canjeero ayaad ku cuni kartaan waxaad doontaan ayaad ku cuni kartaan wax kasta oo aad jeceshiin ayaad ku cuni kartaan steegan qaybta daayetkana wuu galaa maxaa yeelay waa hilib jiir ah oo aan lahayn baruur iyo waxba toona lahayn marka qaybta daayetka wuu idin gelayaa haddaad saladkiina iyo alaabta baradhada umaad iska dhaafaysaan yaa salaatada iyo hilibkaas iyo mushroomkaas iyo khudaartaas ayaad insha allah samaysan doontaan kaale iska arag weeyaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin asxaabta qaaliga daawashada fiidiyoga meel kasta dunida ka joogtaan aad baan idin salaamayaa aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa sida aad mar walba noogu xiran tihiin asxaabta cusub soo dhawaada minankiini waaye like-ta comment iigu reeba waxaad qabtaan su-aalaha aad qabtaan insha allah comment fiican maasha allah subscribe haddaydan hore noola joogin subscribe ka dhacdhac ku sii maasha allah tabaaraka allah asxaabta hore noola joogtay aad ayaad ugu mahadsantihiin saad mar walba noogu xiran tihiin maasha allah mar walba waxaan isku dayaa inaan waxyaabaha cusub ee fudud ee waxaan ku leeyahay aadka u tastiga inaan idiin soo gudbiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan idin mahadcelinayaa asxaabta qaaliga waa Lovely Channel. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.